gabar waxaa arkaysaa nin raashiyaan la taagan oo le ninkeyga waay gabar nin hindi la taagan marka asaliyadeena iyo soo jireenkeena dhan bulsho yaa tarmey yaa kobci Idrislow yaa badiyay waxaa badiyay dumar marka waxaa arkaysaa boqolaal ilmo oo jinsiyo kala duwan leh halka ragga fiiri 9 gabdhood markay dhalato isbitaalada tag hal nin aa dhalanaya kos raggii Soomaaliyeed waa sii dabar go'aya marka maxaa kobcay dumarkii marka waxay noqonaysaa marka upcoming soo socda sanadaha soo socda inay rag Soomaaliyeed wax yar ay soo haraan ay bataan dumarka ajaanibta wax u dhalay marka waxyaabahaas oo kale asalkiina ilaalino dhaqankiina ilaalino culturekiina ilaalino wallahi meel xuna u soconaa fiir waagi hore fiir Idrisle waagi hore waxaan arki jirnay gabar nin ajnabi ah social media markay la hor imaado commentiga caytin loogu qori jiray oo la dhigi jiray walaal fiir 20 milyan aan anaga Soomaali hadaan nahay hal nin oo ilaahigiisa ku xiran oo wanaagsan ma ka dhax waysaday tolkaada adiga aad ka soo jeeda hal nin oo wanaagsan ma ka dhax waysa dhaqanka aabaado kale leh may ajnabi maxaa ku geeyay marka dadkaasoo kale ma fiican wallahi aniga waxaa aaminsanahay gabar nin ajnabi qabo inaysan hal isbuuc farxad ku seexanin taas aaminsanahay niyow qurux kuliilo horta ragga Soomaalida qaar xun way jiraan oo waxa arkaysaa gabdho badan oo leh nin baa xumeeyay aaminayna inay ragga Soomaalida xun yihiin nin baa xumeeyay haddii ugu badato aan iska ilaano hal xabo ku darsan 2 nin baa xumeeyay iska ilaano hal xabo 3 waxaan uga dhignaa deerato mid way isfahmi waayeen xiriir isku fahmi waayeen mid way isguursadeen way isfahmi waayeen mid kale hadda markii isguursadeen way isfahmi waayeen iska ilaano 3 nin xumeeyay gabadha Soomaaliyeed waxay aaminaysaa ragga Soomaalida oo inay xun yihiin waa wax macnaha waa natural maskaxda ibni aadankaas oo shaqeysa haddii aad hal mar qalad gashid haddana markale ku celisid qaladkii normal kula noqonaa ragga Soomaalida waxaa soo ka haddii uu mid ku xumeeyo mid kale haddana ku xumeeyo haddana mid kale ku xumeeyo waxaas dheed ragga Soomaalida faa'iido ma laba maxaa ka doonaa in Soomaaliya marka ani inay gabar Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed nacdo ama ay dhaha Soomaalida wiilashooda ma fiicno wax weyn ma arka sababtoo aan waxa arkay comment ku soo qoray faarax lagu baastiyaa raba ninkuna xagga cawal jiifo comment qorada ninkeena xagga loo jiifa yaa waay kaas cawal soo jiifa faarax lagu baastale waay nin Soomaaliya waay lagu dhuudhuuna calool weyn oo garabad cadxiran marka ani lama yaabay dad comment soo qoray at the end of the day nin midow Soomaaliya xagga loo jiifa laakiin samida aan aad kuga soo horjeedo waxa waay naag Soomaaliyeed salahan oo baxday oo dad kala guursatay haba guursato is okay waa jecelaysatay dad kala guursatay Soomaa marka guursatay inta live soo gashay hadana gabdhihii yaraay carruurta hayna ku dhahdid ragga Soomaaliyeed ma fiicna intaas aan nabay iyada nin cad guriga u dhax jiifa nin cad ay haysataa annaga taataawan meel ninkeeda cad waxa yartaa sameeyso good for you is okay one normal thing laakiin waxaan nacabahay gabadhaas markay hadana soo fadhiisato ay ragga Soomaaliyeed wax ka sheegto أنت سأل وسوتشيدا. أنا في. أنا كمان نقول هذا سويت يعني. بس لو أنا هالمد الله يعبي. توبي كان إننا نقلر ربع. ولي جينا توبي لما حشوني. فيري. ما أنت جوجل كهذا كو خرطت cheap and clean. محكو صباح يدرسلي. فيري. هير قلبات كعدانك وحي جارين قبلين الشرفت بدنا الصوماليات إني كنت المامان cheap and clean. فيري وانا نظيف وانا رقيس فيري وانا نظيف وانا رقيس قف كفيري ما انت قف نين صومالي عدو كل باتين هذا كذا الكاك جيبيناه ما فهمت هذه طلبة لا لكن نين أجنبي ما انت عدو كل باتين يا ما انا اكو هيلين كربات ما اكو هيلين كري قصني كفاميلي ايشو محاكو قليا لله قربان مكو هيلين كري انها كافير سرا ودد دعدا عدو كو دوخو أسوأ خمريستان درباحشة aad ku dhufatid ma ku hiilin kari darbaxsho labaad haduu kugu dhufto koos maxaa waay heeranan ku hiilin karin adaa igaarsi meeshan kugu hiilin karinna waa ka soo tagtay ka cadkayga ka dhacsan karo ilka aan ku dhufanayna iima guursanin hadana feeri weliga inta gabar dirisle inta qarsooni inta publica ama meel walba inta gabar aad aragtay niman ajaanib guursaday hal ilabaad ka arkaysaa ruux dhalinyaro qabo maxaa qabo markaas odayaal iska beeshin
koo hallo ku taagan mararka qaar waxaaba is leedahayba kuwa waxaa loogu talagalay dadka caddaanka ah markay duqoowaan inay ku nastaan fiiri ma aragtay Dirisle u fiirso ma arkaysi adiga marka faaraxaadoo dhalinyaro ah aad u talin kartid oo wejiga kaga candhuufi kartid adoo haysta oday waayeelo hallo ku taagan oo beri dhimar rabo maxaa adigu noloshaada ku gelay kos waa sababtay caddaanka ku leeyihiin cheap and clean nadiifaa tahay laakiin raqiisaa tahay adaa heerkaa isgaarsii marka inoo ma fahantaday daycare waxa la jiray daycare daycare kama taqaanaa والله ترى تيكتوك waxaa ku arkay gabar yar oo 15 jir oo yar aad u yar 15 jir 16 jir gabadha ma ka yar say u qurux badan tahay Dirisle maxaa agtaagan markaas aniga waxa u maleynay kuwa maaragtay keerka dadka waaweyn dadka xanaaneeya u maleynay daankay ka dhunkanay may hasban ay leedahay Dirisle aniga iska daa aabay dhali karaa taada kala fiiri falsafad waxaa soo baxday Dirisle oo ah fiiri ana tusaale maanta gabaraan guursaday gabadhiidoo xashish cabaysaan arkay gabadhii bulshada markay dhex taagan tahay qof wanaagsan u qaab eg tahay xashishi dhuuqaysaa khamri cabowsaa xaaskayga waay anoo iska ilaalinaya muxuu helay uu ku dheelay ii bari ninkaan naagtaan uu xumeeyey darteed maa qofka khamri cabka xashiishka dhuuqaaya ama ciyaala suuqada gabadha ah ilaahay xaaskeena kama dhiga gabdhaheena Soomaaliyeedna kama dhiga ma kula noolaana nolosha cariiriga ah may fiiri u fiirso ragga Soomaaliyeed gabdhaha wada furay dhan marka u fiirsata ragga leela bal ninka maxaa ka ogtahay nolol xayaatul kalab ama nolol dhibaato ah inuu ku noolaado maxaa ka ogtahay ilaan wixii qarsoon qaybka Ilaahay ogmug marka maskaxda abuu dumarkeena dhan la bedelay oo waxaa laga dhigay always adika dhibana ah niyow gabdhaha imika gabdhahan dambe iyo gabdhihii hore difference u yar dhexeeya gabadhu haddii ay tahay 30 iyo dhowr jir ani still waxaan aaminsanahay inay waxyaaba badan fahamsan tahay laakiin gabdhahan dambe mudan in laga cabsado sababtoo ah niyow waxay haystaan opshino badan mana opshinada badan ay haystaan waxa waaye kuwan 35 jiraday waagii ay caruurta ahaayeen waxay dhegeysan jireen sheekooyinka hooyooyinka islaamaha guryaha imaada sheekooyinka uga dhegeysan jireen islaamaha waaweyn maxay ka hadlaan waxay ka hadlaan macnaha waxyaabo dee normal oo macnaha Soomaalidu ay sameeyso hadda laakiin dhalinyarada xilligan jirta gabadha ku dhahay islaam dhex fadhiisto telefonka jaajiga soo aniga qolka man ka baxayay islaamaha walwal maxaa waaye maanta la sheekaysanay maxay ka doorbidaysaa inay telefonkeeda qaadato ay waxyaabo kala daawato ama waxyaabo kala dhageysato maxay ka ordaysaa islaamihii jaarka imaada meesha inay dhageysato laakiin ma ogo islaamaha waxay ka faa'iideyso inay ka faa'iideyn telefonka ay la sii oraday marka way kala duwan yihiin dadku haddii aad hooyooyinkii hore dhageysatid oo macnaha dadka waaweyn la fadhiisatid waxyaaba badan aad fahmay laakiin haddii lagu dhaho women is power adduunka adaa ugu horeeya aygile kaa horeeya haddaa lagu dhaho ninkuu kaa dambeeya Dirisle maxaa kuu haray marka adiga waxaa dhacday fiiri gabdhaha qaar waxay ku leeyihiin ragga Soomaaliyeed rag fiican ma aha rag xun waay adi marka aabaada muxuu yahay ilaa aabaada rag Soomaaliyeed waa astaan u taagay adi ma waxaa naga dhaadhicin kartaa aabeega wanaagsan laakiin rag Soomaaliyeed waa xun yihiin aabaada waxaa ogaataa gabar adiga ka horeysa inay dhaaday rag Soomaaliyeed waa xun yihiin naftirkiisa la soo dhaleecay barka adiga aabaada u gufaysaa aniga waxaan aaminsanahay Dirisle xilli waxaan taaganahay annaga aan isqaban lahayn wallaahi xaalad khatar ah ku jirnaa fiiri alqadaa walqadar qadarta waxay ku dhacdaa wuxuu ilaahay qoray ilaahay wuxuusan qorin ma dhacay fiiri hadda Sweden nin baa naagtiisa ku dilay ma arkaysa nin Swedish dhahaaya ama gabar Swedish dhahaysa ragga Swedish ka dhan waa xun yihiin Maraykan daraasad markii la sameeyay waa wadanka ugu dilista badan ugu kufsiga badan markii loo eego wadamada reer galbeedka hormaray maalin walba la isku dilaa